أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا. وأسلم على نبينا محمد وآله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. ولكتابك عندها نكجرنا باب الجنابة. جنابة أيوب إيهي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن صلى الله عليه وسلم أيها هريرة لقيه وقل ما في بعض طرق المدينة. magaalada madiine jidadkeeda qayb ka mid ah ayuu abuu hurayra rasuulmay wahwa junubun, wahwa asagoo abuu hurayrana junubun janaabaysan yahay, janaabana uu markaa qabo. qaala wuxuu yidhi abuu hurayra, anastu waan ka min socdayda ka dusayo waa ka dhuuntay, fadahabtu waan baxo waan tegay, waan soo meertay soo cubaystay, kadib ji'tu waan u imid. dib rasuulka ayaa yiri asaguna ayna abi yaa abaa hurayra, xagee ahaatay, xageed qabatay, intii ku sugnayd yaa abaa hurayra? qaala abuu hurayra wuxuu yidhi kuntu waxaan ahaa rasuulkii allow junuban mid janaabo qaba ayaan ahaa. wax ahaa junuban janaaba mid qaba ayaan ahaa, waan janaabaysnaa. ama riyaha ku janaaboobo ama se xaaskiisa ha u galmoodo, say noqotada janaabo qubays waajiya korkiisa saarna. kuntu junuban ahaa fakarihtu oo raahsaday an ujaalisaka inaan kula fariistaan diidaayay calaa gayri tahaarati, tahaaro la'aan, tahaaro kayrkeed anigoo dul ah inaan ku ag fadhiisto. faqaala rasuulku wuxuu dhahay subxaana allah, ilaahay baa nusqaan iyo ceeb iyo waxba ka hufan. ina almu'mina laa yanjusu, mu'minku ma nijaasoobo. mu'minku najaasa ma ahee, mushrikaa nijaasa. yaa ayuha aladiina aamanuu inama najasun falaa yaqrabu an. mushrikiintu waa najaaso, yaysan u soo dhowaan beydka xurmada leh sanadkan wixii ka dambeeya. wa can caaishata radia allahu canha qaalad waxay tiri kaana nabiyu, nebigu wuxuu ahaa sala allahu calayhi wasalam ida iqtasala, marka uu ka qubaysanayo min aljanaabati, janaabada xaggeeda. markuu rasuulku janaaba ka sidaan buu sameeyey yadayhi, labadiisa gacmood. uma ka bacdi tawada'a waa weyse qaadanayay, wuduu'ahu weyse qaadkiisa oo lisalaati, salaada uu ugu weys qaadanayo weyse qaad kaamil ah oo dhammaystiran ayuu weyse qaadanayay. uma iqtasala xiiran jiray horeeya, kadibna waa qubaysanayay. uma ka bacdi yukhallilu wuxuu gelgelin jiray biyadayhi, labadiisa gacmood, shacrahu timihiisa ayuu gelgelinayaa sistooda abadu marka baxdo tiibinayaa. idaa danna uu maleeyo ama uu yaqiinsado annahu qad arwaa, inuu qooyay basharatahu, basharadiisa inuu gaarsiiyey, qad arwaa inuu dharjiyey, macnaha waa inuu gaarsiiyey oo si fiican uga haqabte basharatahu madaxla ugaada. markaasuu ku shubayo nebiga calayhi korkiisa adaha 3 maraatin 3 jeer.
uma kabacdi gasala wuxuu dhaqay nebiga saa'ira jasadihi jirkiisa intii ka soo haray. wa kaanad waxay ahayd oo caaishee taquulu mid tiraahda kuntu waxaan ahaa aqtasilu mid mayrata ana wa rasuuluullaahi ani iyo rasuulka allaba min inaa'in waaxidin hal kooweel keliya ayaan ku qubaysan jirnay. naqtarifu waan dardarsanaynay, naqtarifu waan gelinaynay oo waa darsanaynay waa qaraqaynaynay minhu weelkaa xag qubaysanayna xaggiisa jamiicoo jirna oo gacmahan ku qaadanaynay gacminaynay, marna rasuulkaa gelin marna anaa gelinaaya. riwaayadaha qaarkood waxay ku dareen takhtalifu aydiina, gacmaha yaga way isdhaafi jireenoo markaan aniga darsadoo ka baxsado asaa gelin jiray. riwaayadaha qaarkood waxay dhaheen waa kulmaynay gacmaheena oon isla gelin jirnay. riwaayadaha qaarkood waxay dhaheen in yarkay soo hartana dacnii kastaan ii dhaaf, caaishay buu ii dhihi jiray. anna dacnii baan oran jiray, adi ii dhaaf rasuulkii ilaahayo. oo nolol heer sare ah, waa xayaato aad iyo aad u qiimo badan, waa nolol sharaf leh. waa laisla qubaysanayaa, laisma arki kara maanta. musqul iska daa sariirtan lagu heshiinay. markaasaa darteed baa rasuulka sala allahu calayh wasalam oo xadiidku noogu lafaguray habka janaabada looga qubaysto. qaybaha ka mida waayo ugu ban ee rasuulku uu samayn jiray, waana sida ugu fiican in waysqaadka laga hormariyo qubayska oo qofku xaaladda uu markaa sameeyo. ku tilmaamaysaa caaisha wada qubaysan jireen. wacan maymuunata oo binti alxaarifi, xaarif gabadhiisa ahayd radia allaahu canha, zawji nabiyi, nabiga zawjadiisana ahayd sala allahu rasuulkay u dhaxday afa u ahayd annahaa maymuuna. qaalad waxay tiri wadactu waan dhigay lirasuulillaahi rasuulkii alla sala allahu calayhi wasalam waduu'a aljanaabati, biyihii uu janaabada kaga qubaysan lahaa ayaan u diyaariyey oo aan u dhigay bay tiri. horaan u soo tilmaanay wowga haddii la fadxiyo la kordhigo waa biyaha lagu qubaysto, haddii la godana waa qubayska waa wisqaadka laftigiisa loola jeedaa. nebiga zawjadiisana ahayd annahaa maymuuna qaalad waxay tiri wadactu waan u dhigay lirasuulillaahi rasuulkii ilaahay sala allahu calayhi wasalam waduu'a aljanaabati, biyihii janaabada uu kaga qubaysan lahaa ayaan u dhigay. fa akfa'a waa foorariyey biinihii gacantiisa midigtaa yasaarihii biyo korkeeda maratayni laba jeer ayuu saa ugu soo foorariyey weelkii biyo ku jiray oo gacmihiisa ayuu saa ugu soo jileeciyey. maratayni aw alaaan waa laba jeer ama 3 jeer. uma gasala kadibna wuxuu dhaqay farjigiisa oo qaadka ayaa saa u soo qabtay gacanta mid yuu bicda korkeeda ku shubay. wuxuu sameeyey farjigiisuu ku dhaqoo markaa wuu istanjooday waaye, istanjadana bicdaa loo isticmaalaa. uma kabacdi daraba wuu riftay nebiga yadahu gacantiisa bardihi alxaa'iqi, dhulka ama gidaarka iyo derbiga marayni aw 3 jeer ama 3 jeer. muxuu sidaa u yeelay waa u yeelayaa sala allahu calayhi wasalam haddii kar iyo waxyaabo urle uu ka soo gaaray, shaambo iyo saabuun iyo haddaad isticmaasho booskeeda markaa wuu gelayaa. arlaba ama xaa'idkuu nebigu 2 ama 3 jeer ku dhiftay. uma tamadmada kadib wuu luqluqday, wastanshaqa wuu sandaarsaday, wejigii. uma kabacdi afaada wuu ku shubay nebiga calaa ra'sixiisa korkiisa almaa markaa ku shubay. uma kabacdi jaskiitiisa kale. uma tanaxaa wuu ka soo fogaaday marka meeshii inta uu ku sameeyey ka durqay. fagasala rijlayhi labadiisa dhaqay. faatuuna rasuulka biqirca
xawal ama shukumaan bareenay. qarqa waa go' shukumaan oo kala ah si uu biyaha madaxiisa uga qalajiyo. falam yuridhaa ma uusan iga uu guda galay yanfuha biyadihi gacantiisa, inuu gacanta safir firdhina uusan shukaanka ama tuwaalka uusan isticmaalaynin. saasuu markaa guda galay rasuulka sal allahu calayh wasalam. muxuu u diiday shukumaanka rasuulka sal allahu calayh wasalam? biyaha biyadihi gacantiisa, biyadihi gacantiisa. can cabdullaahi bni cumara ana cumar bn khadaab radia allahu canhu qaala wuxuu yidhi yaa rasuulkii ilaahayow ayaa axadin ku janaabaysan intuu raqsiyo islaanta yuu janaabo gal waa rabasto wuxuu raba mahurlanaan abuu dhahay nabiga sal allahu alayh wasalam idaa tawada'a hadduu weyse qaato axadukum midkiin falyarqud lagaa rabaa laakiin soo weyse qaado. laba arrin buu u fiican yahayo dadkaas ayaaxaad iyo daalka iyo waxa uu kaaya. labaadna haddaad damacda mar labaad inaad u gurguurato islaanta xaydaheshada meesha joogto. billahi tawfiiq wallahu